bani wanaagsan ay khayartan dhageysanaysaa ama halkan ka daawanaysa muuqaalkan mar labaad ayaan soo noqon aniga soo noqda aniga oo markii soo gudbinaya muuqaalka gobolka Hiiraan waxaan ku soo xiriiriyay sawirro uu leeyahay marxuum Aadan Cabdulle Cusmaan oo madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Nairobi madaxweynahaas oo madaxweyne aad dadka u jeclaayeen kana una dhashay gobolka Hiiraan sida daraadeed ayaan muuqaal sawiradiisa aan ugu soo dhaxgishay muuqaalka gobolka Hiiraan madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan wuxuu caan ku ahaa inuu madaxweynihii ugu horeeyay ee loo doortay si dimuqraadiga uga degay xukunkii Soomaaliya sidoo kale wuxuu ahaa madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan waxyaabo badan oo kamid ah waxyaabo caanka ku baxay waxa kamid ahaa inuu madaxweynihii ugu horeeyay Afrika ee ku taga diyaarad ay wadaan duuliyaal u dhashay wadanka uu ka yimaaday taasoo dhacday 1963 maruu ka qayb galayay shir ay lahaayeen ururka qaaradda Afrika waxaan halkan soo gudbinayaa muuqaal wareysi ay laga qaaday Aadan Cabdulle Cusmaan sanadkii 1967 markii uu ka degay xukunka Soomaaliya waxaana ku xijin doonaa heesta caanka ahayd ee beledweyne oo uu tiriyay Xasan Aadan Samatar ku heesay Xasan Aadan Samatar arag dame iyo daawasho wacan oo wanaagsan wareysi oo Aadan Cabdulle Cusmaan markii 67 uu xilka ka degay uu bixiyay mudane waxaan ku weydiiyay 20 sanadood in ka badan ayaa ku jirtay siyaasaddan dalalka Soomaalidu ay degan tahay 6 sanadood iyo in ka badanna waxaad madaxweyne u ahayd wadankan waxaana aad ka mid ahayd raggii u soo dagaalamay xornimada jamhuuriyadda Soomaalida muddada intaa leeg haddii siyaasadda aad ku jirtay Soomaaliya maanta ma gaadhay waxyaalihii aad la jeclaysan jirteen markii aad bilowdeen kifaaxa xornimadeeda ma kula dhacday tubtii aad u hindisteen Soomaaliya waa ay gaartay barbar haddii loo fiiriyo wixii ay doonaysay li'aana kifaaxanagu wuxuu ahaa in wadanku xoroobo oo taladiisu ummadda Soomaalida gacanteeda ay gasha taasna waxaan u malaynayaa inaan shakinimo qofna uga jiri karin in xorriyadii wadankii Soomaaliya uu helay inkasta oo wadanka ijmaal ahaantiisii sida loo ogyahay uu kala maqan yahay intii wasaayada ku jirtay iyo intii xorriyada qolo kale inta ka heshayba inay israaceen oo xorriye heleen oo xorriyadooda ay ku istiraxayaan waa la ogyahay saas ay tahay demayno oran karo tubihii aynu doonaynay yaa wadankii ku dhacay li'aana gees haddii loo eegana wadankii waa uu kala maqan yahay gees kalenta haddii loo eegana wadanka ikhtisaadkiisa inuu wanaagsanaado oo si walba ummaddu ay u raaxaysato oo camal la'aantu ay baaba'do ama ay yaraato aynu jecelayn taasuna hadda weli kama aanaan gaarin xad li'aana wadanku dhaqaalihiisii lagama dhisi karin muddo saas u dhow waxyaalaha dadka Soomaalida meel kasta ha joogeen kuwii badanaaba waata ku saabsan dalalka Soomaalida ee maqan amuurtaasina waxay la soo darastay jamhuuriyadda Soomaalida kadib intii istiqlaalka aynu qaadanay muddadii wadankan aad ka ahayd madaxweynaha amuurtaana badanaaba waxa dawladda Soomaalidu mid hore iyo mid dambaba ay ku dooni jirtay inay ku raadiyaan si nabadeed haddii wadankan maanta aad oday u ahayd ma waxaad weli ku talin lahayd in dalalka lagu raadiyo si nabadeed waxaan u malaynayaa adduunka siduu u dhisan yahay maanta marna inaan la ogaan karin nabadda wanaageeda iyo sida ummadaha adduunku joogaan oo dhan ay nabadda u jecel yihiin ama inay u dhisan tahay nabadda darteed iyo inaan xoog iyo dagaal wax lagu kala qaadin inay u dhisan tahay umad mutaxida annaguna haddaynu Soomaali nahay inkasta oo aynu dastuurkii aynu ku dhignay wadankanagu inuu kala maqan yahay oo aan isu doonno taasuna ay ma markin karto wax walba weli kama aanan cajisin inaanu nabad ku doonno xaqii ummadda Soomaali ka maqan aniga taas waa ra'yigayga weeyaan wadankeena waxaa lagu ammaanaa mudane inuu yahay maanta wadanka qura ee dimuqraadiga ah dalalkii Afrika ee istiqlaalkooda qaatay haddii aad indhaysay heerka aynu maanta ka gaadhnay siyaasadda iyo dimuqraadinimada sida aynu ugu isticmaalno maxaa ka mid ah waxyaalaha aad ugu bogto dimuqraadinimadeena maxaase weli aad qawadaa dimuqraadinimadeena iyo dhaqanka dadkaba waxay ila tahay dimuqraadinimadu waa sida loo yaqaano ummaddu
talada inay ayagu leedahay weeye shacabku inuu talada leeyahay oo lafdiga naftigiisa yaa wuxuu caddaynayaa in dimuqraasiyada ay tahay talo ummaddu ay leedahay saldadeeda inay ayagu leedahay ummaddu weeyaan marka anigu waxay ila tahay maanta haddii bacda 7 sano oo xor aynu ahayn weli ayna waddanka iyaga ka dhicin axwaal ka dhacaa adduunka leento ama araadka leento oo xorriye ay ku cusub tahay sidoo kale deegaanka ku soo gaaray 7 sano waxaan ka dhacay sababta ay tahay dimuqraasiyada darteed marka dimuqraasiyada sidii dastuurka ku dhisan waa inay ku socoto ay ila tahay in haba yaraatee ummadda xorriyadeeda aan waxba loo dhimin in ummadda salbadu ayadu ay lahaato oo min waqti ilaa waqti ay ummadeeda doorato inay ku wanaagsan tahay bay ila tahay khaasatan ummadda Soomaalida ah kayfiye kareento oo loogu talin karo oo taladeeda loogu ofin karaaba inaynan jiri karin haddaan xumaan la doonin bay ila tahay ugu dambaystii mudane haddii intaas aad la socotay siyaasadda Soomaaliya oo aad hogaamisay rajacaynkaasa sidee baad uga qabtaa mustaqbalkeena waddankeena xaggii israaca iyo xaggii siyaasadda iyo xaggii dhaqaalaha iyo xagga dhaqanka dadkaba rajadan baan ka qabaa waddanka iyaga maslaxadiisa iyo horsocodkiisa ayadoo ay iska jirto anagu islaam baan nahay ilaahay uu nagala dardaarmay uu nayiri raxmadeyda marna ha ka qancina uu nayiri taasan aan ixtiqaad weyn u leeyahay waxaan u malaynayaa inaan marna la oran karin waddanka wanaagiisu la heli kari maayo ibn aadamka noloshiisa dhan baa waxay ku dhisan tahay rajo waddanku waa wanaagsanaya bay ila tahay ragiisu ilaa waqtiga kan waxba baranayay waxba baranaya waynu ognahay marka aynu xorriyada qaadanay rag cilmi iyo faraq wayn wax ku qaban karaa waddanka ma aynan joogin xorriyada iyo wax qabashada kulligeed waxay nagu ahayd cusbaan waynu cusbayn barashadii iyo weli ku jiraa way ila tahay الله ونحرسته ورئيسيه وسيجي وريه صوماليه مركز حلكة صوبتي بكوحدي قرطي بريدي كيفولي أنا بالكبكل sawirada daawanaysa maqaalka beledweyne waxaad hadda ka aragtaan labada bridge ee caanka ku tahay buundooyinka ee caanka ku tahay magaalada beledweyne sidoo kale webiyaasha dhex maraya magaalada beledweyne webigaas oo webi aad u ballaaran oo ku fataha magaalada marka ay buuxsamo webigaasi taas oo khasaare xoog leh u geysta una baahan mustaqbalka in laga hortago geedka baxadan oo xasan aad samatar tilmaamay ayaa ka arki kartaa inuu kamid yahay geedadka tirada badan ee magaalada Sacaan ay ku tahay iyadoo kamid ah magaalooyinka tirada yar ee dhirta badan taas oo u sababtay wabiga dhaxmara ee quruxda badan magaaladaas حد صباحي بني كما ما نقوم بستيو بعد كيما ديلي من صباحك صوني يلا ببقلنتي ما نقوم بستيو بعد كيما ديلي من صوت باقولكي عنك وبرواقيو ميل باقلي تشوغلو سارق لما وناك خاطم